xuska 25 guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay gooni isku taaga qarannimada Soomaaliland ee 1991 ee 18 May oo ka soo wareegtay rubuc qarni ayaa waxa maanta sidii ugu weyneed looga xusay magaalada Burco oo halkii lagaga dhawaaqay qarannimada Soomaaliland munaasabadani ballaadhan ee loo sameeyay xuska maalintani qaran ee 18 May oo ka qabsoontay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay kumanaan kamid ah bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco kuna labisnaa calanka Soomaaliland waxa kale oo ka soo qayb galay munaasabada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wafdi uu hogaaminayay maamulka gobolka ka degmada laamaha dawladda goobaha ganacsiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Togdheer waxaanay munaasabadaasi ku soo bandhigeen ciyaaro iyo heeso gaar ah maalintani qaran sidoo kale ciidamada kala duwan ee booliska iyo militariga gobolka Togdheer ayaa waxa intii munaasabadani socotay gaadi ciyaar iyo dawladus ku soo bandhigeen goobtaasi waxaana shacabka aad qalubtooda ka dheehanayso siday ugu hanweeyeen jiritaanka qarannimada Soomaaliland waxaana hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka kuwa degmada Burco mas'uuliyiinka socotay asxaabta xisbiyada heer qaran iyo heer gobol wasiirka hawlaha guud madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaanay guud ahaanba shacabka Soomaaliland ku bogaadiyeen xuska maalinta qaran kuwii dhintay oo ducayna Ilaahay maaragtay oo naxariisto inta noolla in Ilaahay maaragtay adduunka inta ku nool ciise sharafka ay ku noolaadaan iyaga keenay maanta state markii May iyaga keenay calankan waxaan uga baryaynaa madaxweynayaashii halkan madaxweynaha ka ahaa waddankan madaxweynihii ugu horeeyay iyo kii labaad oo ku geeriyooday iyagana waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto halkan maanta aynu taaganahay waa airportkii Burco maalintii Jimcihii 27 May dagaalkii dib u xoreynta qaranka Soomaaliland waa goobtii labaad ee uu ka bilaabmay halkan waxaa ku aasan oo ku dhintay rag qarankan qiimo ugu fadhiyay marka hore ee aynu isu nimaadno xaq bay nagu leeyihiin dhiigoodii iyo naftoodii bay noo hore inaynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf u weydiino ilaahay jannadii ha geliyo ayaa inagu waajiba waxaan leeyahay hambaliyo dadweynaha Soomaaliland meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan iyo inta horteeda joogta inta shaashadaha laga daawanaysa waxaan leeyahay hambaliyo waa rubuc qarnigii 25 guuradii gooni isku taaga Soomaaliland waxaan kaloo halkan idinka hambaliyaynaynaa waxaanu taaganay goobtii iyo go'aanka lagu qaatay oo ah magaalada Burco waa maalin taariikhi ah 25 guuradii ka soo wareegtay gooni isku taaga ama la soo noqoshada goonida Soomaaliland waa maalin taariikhi ah waa goob taariikhi ah waa magaalo taariikhi ah oo ay xafladaas intaas soo kasbatay Burco halkaa maanta arrintii ay ka samaysay wacdaha ay ka dhigtay waxa weeyaan sida loo sheegayba alla ilaahay hargeysa yaatay waxaan aad iyo aad u salaamayaa u mahad celinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland noocyadooda kala duwan oo runtii aynay noo suura gasheen iyaga la'aantood maalin qaran waa maalin loo wada simeeyay dalbaadega mar labaad iyo mar saddexaad waxaan salaamayaa shicibweynaha reer Soomaaliland meel ay kasoo ay joogaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa nus qarni bay Soomaaliland jirtaa 18 aynu aynu joogno 18 ku xiga in inagoo layna ictiraafay aynu iskugu iman doonno inta waxaa halkan ku cad oo halkan ka muuqda in halgankii loo soo galay jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddada dheer soo socday inuu yahay halgan guuleystay inuu yahay halgan lagu baraaray inuu yahay halgan lagu gaadhay horumar cadaalad iyo sinaan marxaladii halgankii dheeraa ee qalaadha ee ay soo mareen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland horseedka iyo hormoodkana ay ka ahaayeen dhaqdhaqaaqii ururka SNM geesiyaashii ku suntan qarannimada reer Soomaaliland ummadda iyo dadweynaha reer Burco maanta 18 guurada 18 May fagaaraha weyn ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco markii meel kale oo qaadi weyda la waayay halka isugu timid waxa aan maanta u hambaliyaynaynaa oo aan si kal iyo laab iyo sharaf ugu hambaliyaynayaa
maanta oo ahayd maalintii qarannimadeenna dabaaldegii sanad guudada shanaad ee ka soo wareegtay maalintaan u soo noqonnay xornimada jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad baan dhammaan waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo kan degmada ee sida wanaagsan u soo abaabulay dabaaldegga sharafta badan leh ee aad u qiimaha badan leh oo oran karo maanta cid ka sidataa ay jirin gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco xuska 18 May ee maanta laga xusay magaalada Burco ayaa noqonaya xuskii ugu ballaarnaa ee muddadii uu talada dalka hayay madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo looga xuso magaalada Burco. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad, shabakada caalamiga ee Adwanaag News, magaalada Burco.